ku dhawaad muddo 3 toddobaad waxay wadooyinka magaalada Muqdisho u xirnaayeen kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo raaf lagu magac daray xasilinta caasimadda ka waday dhammaan degmooyinka Muqdisho intii lagu guda jiray muddadan waxay maleeshiyaadkan maalintii wadooyinka ka geysan jireen raaf jirdil iyo qafaal habeenkiina waxay wadooyinka cidlada ah soo fariisin jireen murtad Khayrlaawe iyo golihiisa wasiirada si ay u jiraan masraxiyad ay ku muujinayaan in ay haystaan amni iyo nabad ayna magaalada ka sifeeyeen awoodda mujaahidiinta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawiyin nimid oo idin la afurnay in iyadoo ay Ramadaan tahay oo aad ogtihiin taariikhda magaalada Muqdisho aan jidadka magaalada Muqdisho banaanka meel kamid ah aan ku afurayno anagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo Khayrlaawe oo sujaayada loo dhigay bartamaha mid kamid ah wadooyinkii u xirnaa murtadiinta ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay in isagoo kamid ah madaxdii murtadiinta uu fadhiyo bartamaha mid kamid ah wadooyinka ugu waaweyn caasimadda laakiin hadaad weydiiso aaway gaadiidkii mashquulka ahaa ee isticmaali jiray wadadan heli maysid cid ku jawaabto waayo goobta waxa daadsan oo kaliya golihiisa iyo maleeshiyadiisa mid baa ku faanay in ay mujaahidiinta ka sifeeyeen Muqdisho kuna baacsan doonaan shabeellada hoose midna wuxuu soo bandhigay seef iyo faasas isagoo tilmaamaya in magaaladu ay ka saareen wixii hub ahaa laakiin intii lagu guda jiray masraxiyadan iyo mala awaalkii warbaahinta ayuu Allah kaga yimid meel aysan filanaynin qulubtoodana ku tuuray argagax iyo anfariir daadka raaciyay dacayaadkooda ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakad al-shabaab al-mujaahidiin ayaa xalay fiidkii weerar qorsheysan ku qaaday kalaab lagu tunto oo ku yaala meel u dhow isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho iyadoona halkaas lagu dilay 12 ruux oo isugu jira ajaanib shaqaale ka tirsan murtadiinta iyo haween ka soo jeeda dalal kala duwan oo jirkooda ka ganacsada weerarkan oo ahaa mid seher sare loo soo abaabulay ayaa ku bilowday amaliyad istishaadi ah oo lagu dhuftay albaabka hore ee laga galo dhismaha kalaabka kaas oo gabi ahaanba burburiyay dhismaha iyo goobaha ku xiran qaraxa kadib koox inqimaasiyiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa gudaha u galay dhismayaasha kalaabka kuwaas oo toogtay sidoo kalena dhameystiray maleeshiyaadkii ilaalada ahaa ee joogay goobta kadibna u sii gudbay dhismayaasha kale mid kamid ah halyeeyada inqimaasiyiinta ee fuliyay weerarkaas ayaa sharaxaad kooban ka bixinaya sidii ay wax u dhaceen ilbiriqsiyadii ugu horeeyay ee ay jirayeen ganjeelka dhismaha ee biraha iyo dhagxaantu ku horjiran yihiin meesha marka jubta hore marka ilbaabadii kulli waa qabteen koobe way haraati joogay ana xabad ku sameeyay wax baqti wax kale noqdeen iyo xaq la carreen noqdeen marka waxaan u tarneynaaga waxa jirkooda ka ganacsanay meesha ku jireen ana waxa joogum laan hadda salaalina tumar hadii la soo faa'iido dagaalo waa jaanta ilaahay jibiyo insha Allah qofneen inay jihaadan ku qaata wadankooda oo gudtay ku tunteen inay jihaadan leh dadma daawad ku qaatan oo wadanku oo aliinta gaab wadanku soo hortay rasaas kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha kalaabka kadibna waxay halkaas ka geysteen toogasho ay ku xasuuqayeen cadawgii halkaas ku sugnaa ee isugu jiray murtadiinta iyo gaalada ajaanibta ah boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jira booliis iyo sirdoon ayay murtadiintu ku soo daadgureeyeen hareeraha dhismaha ee uu weerarka ka socday balse Allah fadligii way u suuragali weysay inay soo afjaraan weerarka kadib markii dhowr jeer ay ku fashilmeen isku day ay ku doonayeen inay ku galaan gudaha dhismaha mujaahid kale oo kamid ahaa inqimaasiyiinta ayaa ka warramay sida uu u laayay koox ka tirsan murtadiinta oo uu kula kulmay albaabka hore ee dhismaha saddex iskadamiya ahaad ugu soo rideen halbama u dhigay adiga waxa waaye dhamaantooda waxa waaye meesha ku basbeeleen ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha ku cadaabay ilaahay adowgiisa waa joogay hadeertan gudaha ku jirnaa ma fahamtay alxamdulillah ilaahay ku macsan weerarku wuxuu ku bilowday istishhaadiya lagu dhuftay ka gadaana usoo dubsamay gudaha ilaahay noo fududay alxamdulillah hadeertan gudaha ku jirnaa waxa waaye ilaahay aan ku macsan tabaaraka wa ta'ala hadeertan meesha ku sugannahay meesha anaga la wareegin hadeertan waxa waaye waxaan kaaga hadlayo waa daba qasar saarada hadeertan wax gurmada uma jeedo laakiin waxa waaye ma aqaan kulli hadda kadib waxa dhigi doono laakiin hadeertan wax gurmada uma imaan dhammaan noocyada kala duwan ee murtadiinta ee lagu soo daadiyay hareeraha dhismaha ayaa xalay oo idil taagnaa banaanka kadib markii ay ku dhiiran waayeen inay galaan dhismaha halka halyeeyadii inqimaasiyiinta ahaana ay ku jireen gudaha halkaas oo ay ku ugaarsanayeen haraadigii cadowga ee meesha ku dhuumaalaysanayay mujaahid kale ayaa wuxuu suurad ka bixinayaa tirabadnida iyo tayaxumada murtadiinta wixii uu arkay intii lagu guda jiray weerarka أول حارة ما حاجات ما عرفنا حاجة أنت أنا
ayuu silaaxooda gacanta ku haysto oo dhinac walba duugan oo wadooyinka dhinac ka taagan oo baasha anaga aan isu sheegin xataa caarifayno oo qoryaha lagu caalinayaan way Afrika iska taageen waxa waa kulli stoorina ku wada dhigay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaala gawaaf iyo qoryo u tiisana qoryo qabsan waayeen ayuu naga garbaha ciidan inuu yihiin amal garbaha naga taagan naga soo carrama dan aroornimadii hore ee saake salaada subax kadib ayay mar kale isqabsadeen dhimbilaha rasaasta kadib markii murtadiintu ay soo qaadeen weerar ballaaran oo ay u adeegsanayeen madaafiicda iyo garneelada garbaha laga tuuro waxaana gudaha kalaabka mar kale uu martigeliyay malxamad taariikhi ah oo ay isaga hor yimaadeen libaaxyada islaamka iyo junuuda shaydaanka taas oo socotay ku dhawaad 2 saacadood oo xiriir ah intii lagu guda jiray malxamadan jawiga dhismaha ayaa ahaa sida tan mujaahidiintu waxay dhismaha kalaabka haysteen in ka badan 10 saacadood oo xiriir ah sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta waxaana uu howlgalku soo dhamaaday barqanimadii hore ee maanta kadib markii goobta lagu xasuuqay cadow badan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in ku dhawaad 30 ruux lagu dilay weerarka kuwaas oo isugu jiray ajaanib xubno ka tirsan murtadiinta iyo dumar ku tumanaya kalaabka halka sidoo kalena lagu dhaawacay ku dhawaad 40 kale wakaalada wararka AB ayaa iyadana sheegtay in tobaneeyo dad ah oo ay ku jiraan Ethiopian Kenyaati iyo dad Asian ah in laga soo badbaadiyay weerarka kuwaas oo qolol isku soo xiray markii ay rasaastu maqleen saraakiil u hadashay murtadiinta ayaa qiray in ku dhawaad 20 ruux ay ku dhinteen qaraxa 30 kalena ku dhaawacmeen balse waxay sheegeen in la beegsaday dad shacab ah iyagoo cudurdaar u raadinaya kalaabka la bartilmaameedsaday